horta Soomaali waxa dhiig biyo maaha qofka markaad isku sheegaysaa haduu dhiig kugu raxata ma jujucooni laakiin dhiig haduu kugu yaalo inuu xaadsaas istaagayso kolba way waxaan dareemay inaa jiir iga mid ay hor fadhiyo dhammaan dadkii Madaluug waxay isla garteen in ay sharfaan oo ay booqdaan ugaaska ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Toodi magaceena guud Madaluug waa taariikhdeennii hore iyaga oo kala maqnaa muddo qarniyaal ah maanta waxaan ku faraxsanahay inaan dadkeennii isku soo hilowna aan midnimadeena adkaysano waas hadda ka hor hadii aad waaska samaroon iyaga waaska Madaluug ayaa tahay anako curidkiiniya soo dhawaada ismartiyeynina meeshu waa meeshii minimkiina waa si raaxa marka أنا وحن كي ما هذا قرحي أنا كأواس وحن كل هاي برشة واس يتو اللي يتو قبيل أنت وما هذني اللي أنا كرا نوائل السعودان هذا ما شفته شركة تنبه أيه إنه أنت كبدن أو ذيديني يدا سلادين تاني وانو ذيدينا شير وين بينو قبضن دونا هدي لهيدا إنه قد مركادت كني مديننا هالكاسان كودينا وين إسبرامي halka ayayna ku kala tagin shirkan oo halka ka sii socdo ilaa uu gudbo shir ay isku yimaadaan dhammaan beelweynta Madaluug meel ay joogaan shirka dhalinyarada Madaluug beelweynta Madaluug oo hore isku aqoon maanta la isbarayo waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa anigu waxaan ka socdaa gobolka Qorraxay gaar ahaan degmada Qabri Dahar dadooda dhashaanahay kulli meelaha baan ku kala maqmaqnayn maanta haddaan ishelno waxa la imaadeen rayaal waan idinku faraxsanahay inaan idin barano ni barakeeyo waan nii duceeyay ummadda midowda baa adduunka khayr hela ilaahay baa la yadallaha maca jamaacaadka iyo walaalnimada iyo inagoo wada dhalanay haddana war isku hayn waa tafaraaruqa ummad marka waqtiga adag ee soo maray haddaan iska bar magacaygu waa Abdulqaadir Maxamed Yuusuf kana mid ah dhalinyarta midaynta ama midnimada Madaluug halkan maanta isugu yimiday isbarasho dhaxmaraysa insha Allah dhalinyarada Madaluug iyaga oo kala maqnaa muddo qarniyaal ah halkan waxa fadhiya caawa waa Axmed Madaluug Isaaq Madaluug iyo Cali Madaluug dadkaasi oo qarniyaal badan kala maqnaa dhalinyartoodii markii ay dhalinyartaasi kulmeen ay ka wada hadleen wixii muujidka ugu fudud ee midayn kara dhammaan dadkii Madaluug waxay isla garteen in ay sharfaan oo ay booqdaan ugaaska ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Toodi iyaga oo اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعنا قود Madaluug وتاريخديني هره ما أنت دلني رضا إنه تمدي إنه صوب وقتي آديات بد ما سنتهين ويللي قبضبا آد بد ما سنتهين الله إني بركة وني دعية ومدة مدودة وبا أدونك خير هلا إلهي بالا يد الله مع جماعات كي ولا النمذا إيو إنه وذا دلني haddana war isku hayn waa tafaraaruqa ummad marka waqtiga adag ee soo maray maanta waxaan ku faraxsanahay inaan dadkeennii isku soo hilowna aan midnimadeena adkaysano aan wax wada qabsano dhalinyaradii soo koraysay baa tihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin booqashadaad soo booqateen waan ku faraxsanahay Madaluug iyo khayrka badan ee noo bilowday dadkeena inaan midowno ayaan ilaahay ka barinay inaan wax walba qabsano wada jirkeena Allah inoo adkeeyo midnimadeena Allah inoo adkeeyo wanaageena Allah istuso wad mahadsantihiin khayr iyo nabad baan nii rajeynayaa caafimaad iyo cimri dherer baan nii rajeynayaa ilaahay niga bariyaa
allahuma salli calaa sayidina maxamed shirarka dambe ayaynu intan ka badan oo odayadeeniina iyo salaadiinteenii waan u wada yeedhaynaa shir weyn baynu qabsan doonaa haddii ilaha yidhaa xukuumaddeenii dowlad deegaankeenna ee soomaaliyeed aada iyo aad baan ugu faraxsannahay wadajirkeenna ummadda soomaaliyeed meel kastoo aan joognaba dad walaalo isjecel baan nahay taariikhdeenna hore aan soo celinayna waan wadaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dhammaantiin gaar ahaan uwaaskan sii salaamayaa uwaas aan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adiga iyo salaadiintaada iyo magaranaysaa odayaashaada waan salaamayaa anigu waxaan ka imaaday qoraxay marka uwaas waxaan ku dhahay barasho uwaas iyo tu dhalinyaro iyo tu qabiil intaba waan raadinayay dhalinyaro kale oo nawa ila socdaan hadda meesha fadhiya marka nin madulugaanahay ani qoraxay baana magaranaysaa degannahay marka barasho baan u soconay un marka uwaas hadda ka hor haddii aad uwaaska samaroon eega uwaaska madulug ayaa tahay uwaaska madulug ayaa tahay mar kastaba ha jooga ama qoraxay ayaa jooga ama magaranaysaa mar kasta mar kale ha jooge uwaaska madulug ayaa tahay intaasna waa farxad ayadana magaranaysaa ay noo kordhay weeyaan marka aqoontaa iyo magaranaysaa ururintaas iyo magaranaysaa dee heerkaas inta badan kala maqnaa ee isagoo weliba isku deegaan jooga oo ama labada gobol isku xigta jooga ama hal gobol laga matalan u dhexeeya haddana aan iska warhaynin waa waxa magaranaysaa caqabad inaga aweeyaan marka waxaan kaa codsanay maadaamaad uwaaskii tahay inaad macnihii ka qayb qaadato oo magaranaysaa aad madaxa qabato inay kuwa badan oo odayaal ah ama magaranaysaa ay yimaadaan oo shirka ku xiga ana waan rajaynaynaa inaad hogaamiso oo magaranaysaa magacaas iyo tollimadaas aad magaranaysaa hogaamisana waan kaa doonaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa guddigii soo abaabulay kulankan isbarashada ah ee dhallinyarta beesha madalug ay iskugu yimaadeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa uwaas cabdirashiid uwaas rooble uwaas dhoodi uwaaskeenii qaaliga ahaa kasoo qaybgalka kasoo qaybgalay shirkan aad iyo aad baan ugaaska ugu mahadcelinayaa shirkan waxaa weeye waa shir isbarasho oo dhalinyaro oo isku baranayaan beelaweynta madalugdir sidoo kale shirkan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shir halkaa kasii socda ilaa uu reerku meel uu joogaba uu iskaga imaanayo waxaan idin leeyahay walaalayaal maanta waynu is aragnay waynu isbarannay halka ayaynaa ku kala tegin shirkeenu halkaa kasii socdo ilaa uu u gudbo shir ay iskugu yimaadaan dhammaan beelaweynta madalug meel ay joogaanba marka anugu waxaan ka socdaa gobolka qoraxey gaar ahaan degmada qabri dahar aniga dhalinyar kale saddexdii beelood ee ugu weyneedba way joogaan hadday tahay beesha cali madaluug oo godobirsi loo yaqaano isaaq madaluug iyo axmed madaluugba saddexdii maanta meeshan way fadhiyaan insha allah waxaan rajaynayaa dee maanta is aragna inaan halkaa aan kasii wadno barashadeenii iyo kulankeeniiba waadna mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arxiin aad baan u salaamay horta waxaa salaan guud aad iyo tu sharafaasiina ugaaska ugaas cabdirashiid ugaas doodi allah ku sharfo ugaas qaaliya sidoo kale waxaan aad u salaamay dhalinyarta kala duwan ee maanta halkan kulanka maxaan ku lahaa dhalinyarta madaluug waxaan kuri aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah Soomaali maxay tiri gamcooda jirbi wax ku gooyaan tolkay oo ballaaran oo waxaan kuri adduunka meel ay ka degan yihiin meel walba caalam haysta marka isku yimaadaan waxaan rajeynayaa inay waxa meesha loo galay dhagax ku jibiyaan
marka aad baan usoo dhaweynayaa dhalinyarada Madaluug waxaan leenahay welcome waan ugu faraxsanahay anako curadkiiniya soo dhawaada haysmartiyeynina meeshu waa meeshii minimkiina waa si raaxa marka aan horta dareenkiisa urtay lama soo koobi karo waayo damiirkayga maanta markaan soo fadhiistay dhalinyaro badan ay hadashay aad baan waxaan ku iraan gabigii aan u mashquulsanaa sababta horta Soomaaliya waxay tu dhiig biyo maaha qofkan markaad isku sheegaysa haduu dhiig kugu raxata ma jujcooni laakiin dhiig haduu kugu yaalo inbu xaadsaas ay istaagayso kolba waayo waxaan dareemayay inaa jiir iga mid ay hor fadhiyo marka waan dareemaynaa dalashadu maxaan ku radaayay isma qariso soo dhawaadaan le mar labaad mar saddexaad ba anigu waa ku dhahalay afka dhalinyarada soo dhawaadeen maadarayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام شركتونك guriga waxaan ilaahay qof kasta meeqaamku meesha ku fadhiyaan ku salaamaya waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirka dhalinyarada Madaluug beelweynta Madaluug oo hore isku aqoon maanta la isbaraayo waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa maanta barashada maanta aan isbaranay mid aad u wanaagsan oo la soo xiriiriyo ay noqoto dadadooda dhashaanahay kulli meelaha baan ku kala maqmaqnayn maanta haddaan ishelno waxaan leeyahay maadeerayaal waan idinku faraxsanahay inaan idin barano anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada beelweynta Gadabuursi waan idin soo dhaweynayaa waan leeyahay weliba in badan baan idin xiisa qabnay noo kaalay noo yimaada baan leeyahay aad baan idin salaam